kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa warbaahinta Soomaali Weyn Production kuna soo dhawaada barnaamijyadeena qodobada caawa ku daawo doontaana waxa ka mid noqonaya shirka golaha wadatashiga qaran ee ka socday magaalada Muqdisho oo la soo gabagabeeyay warmurtiyada ay ku jiraan qodobo xasaasi ah oo laga soo saaray maamul goboleedyada iyo dawladda oo ka heshiiyay sida loo qaybsanayo lacagta 100 milyan oo bangiga adduunka ugu talagalay kabka miisaaniyadda dawladda iyo qodobo waaweyn oo shirkii maanta la isku fahmi waayay warkii ugu dambeeyay ayaan idiin soo gudbin doonaa warmurtiyada ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran oo madaxda dawladda iyo dowlad goboleedyada ay ku yeesheen magaalada Muqdisho wararkeena kalena waxa ka mid ah dagaal ka dhax qarxay Saciid Cabdullaahi Deni iyo kooxdiisa Aranjan iyo xog sir ah oo laga helayo wasiiro sacad kaga hor yimaaday Saciid Deni haddaba Deni miyuu ku abaal dhacay kooxdii isaga soo dhistay xilligii doorashada ee maamulka Puntland xaaladda murugsan ee siyaasadda maamulka Puntland ayaan warar idinkaga helnaa lafta gareena waxa uu degdeg ugu duulay magaalada Beedhabo xilli xog culus laga helayo safarka degdega ah ee uu madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya caawa uu ku aaday magaalada Beedhabo waxa ka jira in kala shaki uu soo kala dhax galay isaga iyo Mahad Salaad xilli uu guul darasay isku day la doonayay in lagu kulansiiyo wasiirka wasaaradda diinta ee waqaafta Soomaaliya Muqtaar Roobo oo Mansuur wararkeena kalena waxa ka mid ah khilaaf xooggan oo ka dhax qarxay madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo xog xasaasi ah laga helayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ganafka ku dhiftay muddo kororsigu u damacsanaa Axmed Qoorqoor fila Soomaaliya oo u muuqato inay bilaabayso bartilmaameed gaar ah oo maamul goboleedyada saaxiibka dawladda ahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warar dheeraad ah ayaan idinkaga helnaa qodobada kalena waxa ka mid noqonaya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo cagta mariyay deegaano ay gacanta ku hayeen ururka Al-Shabaab qodobadaas iyo kuwa kale ayaa ku daawo doontaan ee u diyaar garow hordhaca qodobadii aad daawateen faahfaahintooda waxaynu ku bilaabi doonaa shirka golaha wadatashiga qaran oo maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho shirkii madasha wadatashiga qaran ee dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho shirkan oo socday muddo 2 maalmood ah ayaa waxa shir gudoominayay madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaana looga hadlay arrimaha amniga xoojinta howlgallada ka dhanaa Al-Shabaab iyo waliba gurmashada dadka ay saameeyeen abaaraha iyadoo aysan jirin qodobo cad oo madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ee daboolka ay ka qaadeen kuwaas oo ku aadan madmadowga muddooyinkii ugu dambeeyay soo kala dhax galay iyo haddii ay ka heshiiyeen sayeshe qodobo ka kooban ilaa 7 qodob ayay ka soo saareen madaxda maamul goboleedyada kadib abaaraha daba dheeraaday ee saameeyay gobolada dalka golaha wadatashiga qaran waxa uu go'aamiyay in dawladdu ay dardar geliso howlaha lagu badbaadinayo dadka tabaaleysan waxaana la faray dhammaan hay'adaha ku howlan gurmadka inay mideeyaan dadaalada ku wajahan yareynta abaaraha goluhu waxa uu si mug leh u bogaadinayaa howlgallada ka dhan ah argagixisada ee ka soconayo dhammaan deegaanada dalka gaar ahaan kaalinta shacabka reer Hirshabeelle Galmudug iyo Koonfur Galbeed ay ka qaadanayaan la dagaalanka argagixisada 3 goluhu waxa ugu baaqayaa deegaanada kale ee dalka inay dhammaan ay ka qayb qaataan bulshada kala duwan sida odayaasha dhaqanka culimada ganacsatada dhalinyarada iyo haweenka inay si dhab ah ugu istaagaan dadaalada la dagaalanka argagixisada oo ay hormuud ku yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ayaa lagu yiri qoraalkan qodobka afraad golaha waxa uu isku raacay in la dardar geliyo lagana miro dhaliyo wada hadallada Soomaaliland goluhu waxa uu xoojiyay xiriirka wada shaqeynta hay'adaha dawladda labada heer si loo xaqiijiyo kalsoonida buuxda iyo natiijada wax ku oolka ah ee dawladnimada goluhu waxa uu isku raacay in lagu shaqeeyo xaqiijinta xasilooni siyaasadeed oo ku qotanta kalsooni midnimo iyo sareynta dastuurka iyo xeerarka dalka u yaala qodobka ugu dambeeya ee 7aadna waxa lagu yiri goluhu waxa uu isku raacay in la isugu yimaado shir kale oo lagu furi doono arrimaha hortibinta u leh dawlad dhiska Soomaaliya golaha wadatashiga qaran ayaa shirka ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa uu muuqday in madaxdu aysan isfaham weyn aysan ka gaarin qodobada la isku khilaafsan yahay warmurtiyeedkan waxa ku saxnaa madaxweynayaasha maamul goboleedyada Galmudug Koonfur Galbeed Hirshabeelle Jubbaland ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre madaxweynaha jamhuuriyadda halka Puntland aysan ku sixneen oo aysan goobjoog ka ahayn madaxweynaha maamulka oo qaabka fogaan aragga uu kaga qayb galayay geesta kale shirka kadib xog ay heshay warbaahinta Soomaali Weyn Production ayaa sheegayso in madaxda maamul goboleedyada ay ku shirsanaa magaalada Muqdisho ay ka heshiiyeen khilaafka ka taagnaa habka loo qaybsanayo lacag 100 milyan oo dollar ah taasi oo ka timid beesha caalamka gaar ahaan bangiga adduunka sida xubno ka qayb galay shirka ay u xaqiijiyeen warbaahinta Soomaali Weyn dawladda dhexe ee maamul goboleedyada ayaa ku heshiiyay in maamul goboleed kasta la siiyo lacag dhan 4 milyan oo dollar si ay ugu qabsadaan howlaha hortibinta leh hor yaalo habka loo qeybiyo lacagtan ayaa ah mid gebi ahaanba ka duwan sidii markii hore loo qeybin jiray taasi oo ku saleysneed markii hore sida ay u kala duwan tahay miisaaniyadda maamul goboleedyada
sida uu dhawaan uu sheegay wasiirkii hore ee maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beele. Heshiiska hadda dhacay waxa uu ka dhigan yahay in maamulada qaar sida Puntland waxay iska bedeleen qaybta ay ka heli jireen miisaaniyadda dowladda dhexe ay siiso maamul goboleedyada, waxaana jirtay markii hore Puntland inay qaadan jirtay miisaaniyad ka duwan maamul goboleedyada kale oo si weyn kaga badan. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo shirka kaga qayb galay Zoom-ka ayaa ugu dambeyn lagu qanciyay inuu qaato lacag la mid ah kuwa maamul goboleedyada kale la siinayo oo ah $4 milyan. Wasiirada maaliyadda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa dhawaan isku khilaafay qaabka loo qaybinayo lacagtaas, waxaana natiijo la'aan ku soo dhamaaday kulan dhawaan Muqdisho ku dhaxmaray wasaaradda maaliyadda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada. Shirka madaxda maamul goboleedyada ee dowladda federaalka Soomaaliya oo muddo kooban ahaa ayaa dib loo dhigay qodobo badan oo muhiim ah maadaama madaxweynaha dowladda federaalka uu u safrayo dalka Kenya si uu kaga qayb galo calaamasaarka madaxweynaha Kenya William Ruto. dhinaca kalena dagaal ayaa ka dhex qarxay Siciid Cabdullaahi Deni iyo kooxdiisa Aranjan. Madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta daafuray tababar loo qabtay golayaasha deegaanada doorashada ku yimid iyo arrimaha dimuqraadiyadda kaasi oo lagu qabtay magaalada Garowe. Khudbadu madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni halkaas uu ka jeediyay ayaa waxa uu si weyn ugu diray weerarna ugu qaaday kooxdii soo dhistay isaga ee Aranjan la yiraahdo oo haatan ay kala irdhoobeen isla markaana waayadii ugu dambeeyay si weyn u kala fogaaday. Madaxweyne Deni ayaa yiri koox gaar ah oo wada socota ma maamuli karta Puntland. Waxuu intaas ugu daray waxaa jira dad siyaasadda u soo gala inay ka shaqeystaan, waxaan ka digayaa kuwa u soo gala in siyaasaddu ay ka macaashaan ha furtaan shaqooyin gaar ah iyo ganacsiyo. Hadalkan ayaa madficii ugu horeeyay oo uu Deni ku riday kooxdii la shaqeysay xilligii uu ahaa musharax maamulka Puntland sanadkii 2018. xildhibaan Cali Xoosh ayaa hore u bilaabay weerarka ka imaanaya dhinaca kooxda Aranjan, waxaana uu marsii horeysay madaxweyne Deni ku tilmaamay nin iimaankii ka tagay sida uu wax u doonayana aysan soconaynin. dhanka kale waxa la isweydiinayaa kooxda Aranjan sidee buu midowgoodii noqon doonaa, waxaana muuqata hadda in wasiirka maaliyadda Xasan Abgaal uu doonayo xilkiisa inuu sii haysto maadaama uusan saaxiibadiisa hoose damaciisa ka qarin. toddobaadkan ayuu Deni xilka ka qaaday Cabdiweli Said wasiir ku-xigeenkii xanaanada xoolaha iyo wasiir doolihii madaxtooyada oo labaduba xiriir dhow la lahaa Maxamuud Shido oo farxad hoolka baarlamaanka la ilmeeyay kadib doorashadii Siciid Cabdullaahi Deni. sidoo kale waxaa shaqadii baneeyay Cabdiweli Timcade oo ka mid ahaa kuwa ku xiran Aranjan. waxaa la filayaa in toddobaadkan ay sii xoogeysato dagaalka siyaasadeed ee ka dhex qarxay shirkadii siyaasadeed ee dalkan la wareegtay 2019. ugu dambeyn marka la eego damaca ka dhex jiro kooxda Aranjan waxaa la isweydiinayaa sida Puntland ay u ekaan doonto 2024 maadaama geedigii Aranjan baray 2019 la arkay. geesta kaleetana madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Laftagareen ayaa caawa degdeg uga baxay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka isaga oo gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta ku meel gaarka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. wareedda lagu kalsoonaan karo ayaa sheegay in khilaafku u dhaxeeyo maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo kooxda Damul Jadiid ay horseed u tahay safarka degdega ee Laftagareen uu ku gaaray magaalada Beledweyne. wararka qaar ayaa sheegay in Laftagareen uu ka cararay qorshe ay doonaysay Damul Jadiid inay kula kulansiiso wasiirka wasaaradda diinta ee waqaafta Soomaaliya Mukhtaar Roobo Mansuur. wareedda ayaa sheegay in kulankan uu qorshihiisu lahaa iyo abaabulkiisuba taliyaha sirdoonka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad iyo xubno kale oo ka mid yahay xildhibaan Cabdiraxmaan Odowa oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo isku dayay in ay Laftagareen la kulansiiyaan Mukhtaar Roobo Mansuur. Laftagareen oo arrintaas si weyn kaga dadsan ayaana degdeg uga duulay magaalada Muqdisho kadib markii uu soo gabagaboobay shirkii golaha wadatashiga qaran oo 2 maalmood ka socday magaalada Muqdisho. geesta kaleetana dowladda federaalka Soomaaliya waxay sii xoojinaysaa dagaalka ka dhan ah maamul goboleedyada saaxiibka dhow la ahaa madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyadoo Xasan Sheekh Maxamuud uu ganafka ku dhiftay muddo kordhin oo qorsheystay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor. wareedda ayaa sheegaya in kulamo gaargaar ah oo dhex maray Axmed Qorqor iyo waliba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la isku fahmi waayay in la meermariyo muddo kordhintaasi, waxaana wacd uu ku maray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in dhammaan maamul goboleedyada muddo kordhinta ay doonayaan uu si cad uu kaga hortagi doono. wararka qaar ayaa sheegaya in ajandahaas uu soo wakiishay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi. maamulka Galmudug ayaa ka mid ah meelaha ugu horeeya oo ay Damul Jadiid duulaanka ay ku qaadi doonto iyadoo oo qorsheynayso in weerar toos ah ay ku qaado maamulka Galmudug. dhawaan ayay ahayd markii madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug Cali Daahir Ciid uu sheegay in xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Galmudug uusan wanaagsanin waayadii ugu dambeeyay, isla markaasina tan iyo markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la doortay si weyn ay u sii kala fogaanayeen labada dhinac. gudaana daawadayaal intaas ayaan ku soo meerayaa barnaamijyadeedka kala socoteen Soomaaliyeed Production tan iyo kulanti dambe.